السلام عليكم. إن شاء الله تعالى maanta waxaan eegaynaa sidee loo bedelaa caadooyinka xun. qof kasta oo mid wuxuu leeyahay caadooyin ama waxyaabo uu si maalinle ah u sameeyo. Haddaba haddii caadooyinkaaga ay yihiin kuwo liita ama caadooyin xun aan leedahay, sidee ayay ku dhici kartaa inaad caadooyinkaas aad bedeshid? Sidoo kale waxaan eegi doonaa maxaa keena in qofku caado uu iska joojiyay oo haddana in yar kadib uu dib ugu laabto. Kahor inta aan kula wadaagin sida la iskaga joojiyo caadooyinka xun, marka hore waxaan isweydiinaynaa su'aal ah: horta ma la joojin karaa caadooyinka liita ee noloshaada dib u dhigaya? Ma yihiin waxaani waxa ka gudbi kartid? Jawaabtu waa haa. oo wax kasta oo awoodid inaad samaysid, iska joojintoodana waad awoodaa. haddaba qodobka koowaad ee aan tixgelinayno si aan caadooyinka xun iskaga joojin wuxuu noqonayaa inaad tixidid caadooyinka xun ee noloshaada burburinaya ee aad leedahay. tixidda caadooyinkaaga xun kama dhigna inaad naftaada ceebeynaysid, ee waxay ka dhigan tahay isbarasho ama inaad is ogaatid. markaad ogaato caadooyinka xun aad leedahay ayaad bedeli kartaa. laakiin haddii aadan fahansanayn inaad caadooyin xun leedahay, bal ku weydiiyo maxaad bedelaysaa adigu? nambarka labaad ee lagu joojiyo caadooyinka xun waxa weeye inaad Ilaahay baridid in caadooyinkaas Ilaahay uu ka suuliyo, in caadooyinkaas Ilaahay ka dulqaado, in Ilaahay uusan noloshaada mar dambe dib ugu soo celin. qodobka saddexaad ee lagu joojin karo caadooyinka xun waxa kamid ah inaad soo heshid sababta kugu kalifaysa caadadan. waa maxay sababta kugu kalifaysa inaad caadadan xun samaysid? tusaale, waxa kamid ah caadooyinka liita inaad salaad subax markaad tukatid kadib aad hurdada ku laabatid oo noloshaada aad hore u sii wadin. haddaba maxaa sababi kara? ka waran haddii ay salaad subax inaad ka tukato hurdada ku laabatid ay sababayso dhafarka habeenkii inaad soo jeedid. haddaba waxaad fahmaysaa in caadadaas ay sababteedu ay tahay habeenka aad soo jeedis. qodobka afraad waxaad samaynaysaa markii aad soo heshid sababta kugu kalifaysa caadadaas inaad ka taqalusid sababta. haddii dhafarku uu kugu sababayo inaad salaad subax kadib aad hurdada ku laabatid ama aad howlo qabsan weydid, ka taqalus oo awooddaada dhan iskugu gee sidii aad xilli hore ku seexan lahayd. tusaale ahaan, qof walba sabab ayaa ku qasbaysa inuu sameeyo caadada xun. marka sababta aad soo heshid, ka taqalus sababta oo meesha dhan ay sababtaas ka saar. qodobkan shanaad Ilaahay muxuu noqonayaa caadada xun booskeeda inaad ku bedeshid caado wanaagsan. dabcan haddii aad iska joojisay caadada xun ee lahayd, booski waa banaanaana. marka waxaa loo baahan yahay booskaas aad ka bixisay caadada xun inaad soo gelisid caado wanaagsan. saaxiib, haddii aad weli muuqaalka daawanaysid, fadlan muuqaalka like saar. haddaad nagu cusub tahayna subscribe leh. markaan haddii Ilaahay waxaan eegaynaa maxaa sababa in caadada xumeed ee aad iska joojisay ee sidii loo joojiyay aad baratay inaad haddana dib ugu laabatid. qodobka koowaad waxa weeye haraagi oo weli nool. maxaan kala jeedaa haraagi oo weli nool? marka rabtid inaad caadada iska joojisid, tusaale ahaan kaba soo qaad caadada loo yaqaano iska lifid la'aanta. inuu qofku uu noqdo qof aan isdirin oo iska jiifa oo maxaa la yiraahdaa cadaadis aan is saarin oo noloshiisa asagoo aan ka shaqeyn inuu horumar uu gaarsiiyo. caadada iska lifid la'aanta ama inuu qofku maxaa la yiraahdaa waxa kamid ah waxyaabaha sababa saaxiibada xun ayaa kamid ah. waxa laga yaabaa inaad saaxiibo xun aad leedahay oo kugu sababa inaad maanta oo dhan game iska dheeshin ama ciyaar iska daawatiin maxaa la yiraahdaa oo in noloshiina in horumarkan. marka saaxiibadii xumaa haddii aadan bedelin ee aad go'aansatid inaad iska joojisay caadadaas, saaxiibadiina ay ku imaanayaan kula sheekaysanayaan kula joogaan, haraagii caadadaas weli inay kugu soo laabato weli waxba ka nool. marka si aad caadadaas iskaga joojisid, waa inaad haraageeda ama waxyaabihii sababahayay ee saaxiibadii xumaa waa inaad ayagana aad daaqada ka saartaa. oo tusaale ahaan saaxiibka adigu macnaha isha xumeyn mayso waraa iga tagdhiimayso. for example, tusaale ahaan waxaa samaynaysaa inaad qofkii tiraad wax kale aan ku mashquulsanahay, waalidka waxaas ii diray, halkaas ayaa hawshaas aan rabo inaan qabto, hawlo kale inaan qofkii ku tiraad ku mashquulsan. qodobka labaad ee sababa in caado aad ka tagtid dib ugu laabatid wuxuu noqonayaa go'aan xamaasaysan inaad qaadatid. imise jeer ayaa tiraahdaa hebel guul weyn ayuu gaaray, waa inaan maanta wixii ka dambeeya noloshayda bedelaa, waa inaan fadhiga ka kacaa, isla maanta ayaan bilaabayaa hawshaas. laakiin maalmo kadib aad is aragtaa adigoo aan weli waxba qabsan
go-aanka xamaasadaysan ee inaad noloshaada bedelaysid inaad maxaa la yiraahdaa ii sheeg maanta wixii ka dambeeyay waxaas aad u laabanayn adoo si degan u fakirin oo qorin talaabooyinka aad rabtid inaad caadadan ku bedeshid ama aad rabtid inaad horumar ku samaysid go-aankaas xamaasadaysan wuxuu kugu sababayaa in maalmo kadib ama bilooyin kadib aad haddana caadooyinkaaga xumaa aad dib ugu laabatid marka haddii aad rabtid inaad caadada iska joojisid waa inaad go-aan aad ka fakirtay oo aad si fiican u taxliilisay oo aad si fiican uga fiirsatay waa inaad qaadataa laakiin aadan qaadan go-aan xamaasadaysan ilaa muuqaalka xiga nabadgelyo.